هذا وحلو سو wadaagay qof saaxiibka ayaa ila soo wadaagay oo aad u calool warantay anna waxaan la wadaagayaa bulshada Soomaaliyeed aabay baa dhintay hooyadana way nooshahay laakiin ayada laftigeeda waxay haysataa sawir hooy macaan am sawir abooda baalkii wadnaha loo galiyay baa waxa la dhahay expire waa in laga bixiyo sawir ilin bay igu soo tagtay sababta qof baa hadda ka hor idhahay waa ku sameynaya qofkiina wuu ikhyaanay gurigan hadda aan deganahay this month's grades ma bixin waxaan rabay inaan ku tuso video-ga shid oo daawo waxaan daba socdaa hooyo Faadumo barnaamijkan waxa uu bixiyay mahadsanid hooyo waxaan rabaa inaan hooyo carruurteeda jecel oo carruur tira fiican haysata ma sha Allah oo kulli iyada wada qaada iskoolka iyo waxbarashada oo wada geysa oo ku dadaasha oo quraankii barta oo diinigii barta oo maadigii barta in uu mahad celiyo oo abaan marin siiyo iyada oo aan ogeyn taariikhdeeda leelo soo wadaagay waxaan rabaa marka hore saaka waxaan u soo kaba qaatay inaan soo duuba barnaamijkeeda insha Allah ta'ala hadii la yiraahdo shakhsiga caawinayaan aad iyo aad ugu mahad celinay saaxiibkay aad u mashquul badan baa waqtigiisa qaaliga ay siiyay idinkuna ila daawada hawsha hooyo Faadumo kii labaad soo qaaday ma sha Allah ayada gaariga saaraysa farxadda ka muuqatay wajigeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siyaadiyo ubadkeedna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha gaarsiiyo inay ku nasato hadhow iyadu hadda iga yeeshan abaal marin weyn baan wada insha Allah ta'ala idinkuna waa arki doontaan inay ku farxadaan waan rajeynaya abaal marinta ugu talagalay hooyo mahadsanid baabuurtaas qaada ardada iyo waxa soo dhan hooyo Faadumo laakiin waxay tiri carruurteeda anaa qaadanaya qofkii afraad ee soo qaadana waa kan hooyo Faadumo way dhaqaaqaysaa gabadhii bay qaaday qofka afraad bay qaaday waxay ku soo dhacday heestii ahayd Ismaaciil Danan mammo aragtida waxay ila mid tahay anigoo makiyo Madiina batago حجك صومري قوية ماغان إله مركز تباهو ماما فاضمة وحاني بيقولي جيدي وحان صوص عنبا هل صاعي ليراد هذا بس عني اوكي هذا وحان ربا إنا أطبا مركي عروتي لما يصير عروتو كدقان أنا الله ربا مركا أبا المرينتا ما هتسند هو ينا أنكو دونسيو إنا إيقا حرطان كبقى البابكا والدعاد ولا ما هالكاريا مركا وحان ربا إنا إله هذا مقولها هالكارا ولال السلام عليكم ولال ساتاي أنا كل يوم الله ربا ولا أنا كل الله ربا وحير كويديو الوحنا هاي أو درس كعابان هاي حافظ ما نسودني مالين دويد مركا إن كل الدين متقاند أنا أقول لك ما قارك أنت عصا هو يفي عنو عرورتي دو طاق هاي سو ميل كستجي سو مركز تجارجو وحنا سويدي صابت أساري ويدي بسكا مركا عرورة يشوجي محب بسكا أساري ويدي عرورة ولا والله بسكا هرتا الماء جوايرين waxaan u saarin oo baska u saaray walis ilmaha baska waa lagu dilaa oo waxa waaye baska ilmaha way dilaan markaas ay soo xoog sheegtaan waxa la isku soo qaadiyaa high school iyo preschool iyo middle school la isku soo qaadiyaa soo ilmihii badanaana basaska ma haystaan wax la yiraahdo maaragtay 8 inta badan ma haystaan so that's why inaan u soo qaado yarkiisa saaka inaan ku daba socdo laba saacadood baan gaariga ku daba socday gaariga cadaanka ah wata halka yaala baa wadatay ma dareemin maya Soomaaliya waa joogi jirtay muxuu yahay farqiga u dhaxeeya carruurta Soomaaliya lagu koreeyay carruurta lagu koreeyay Mareykan wallahi farqi badan baa u dhaxeeya maxaa u dhaxeeya farqiga badan oo u dhaxeeya waxa weeye dhulkeena hooyo markaan joogno inkastoo horta adduunka hadda isbedelay laakiin wadankeena waa wadan bay aad muslim tahay dadku muslim yihiin qofka wadadaas maraya qofka wuxuu dhaaya waa khaldantahay maxaa u sameynaysaa saas maxaad u sameynaysaa waa khaldanta qofka kale oo Soomaaliga baa dhahay ilmo markay yar yihiin waxyaalo badan baa howlgarayn karta sida hadda maaragtay dawladda oo kale waxay ku ogashaa daycare ilmihi inaa geysid bad aniga 100% daycare ilmaha ma geysid may okay daycare ilmaha ma geysid ilmahayagana waxaan sameyn jiray waqtiga iskuulka ku maqan yihiin baan shaqada ku aadsan jiray magacaaga sheeg walaal magacayga Faadumo full star ma qaato daycare ma qaato 100% gurigan waa guri public housing so waa shaqeeya rentigiisa bixiya $1500 bixiya ada bixiya ana bixiya waalidka ma nooli waalidka midna waa dhintay midna waa nool yahay keeba dhintay aabay baa dhintay la yaa hooyadana way nooshahay laakiin ayada laftigeeda waxay haysataa heart surgery haysataa waa la qalay marka ugu ducaynaya she's very serious hadda xagee joogtaa هذا سوي جوك
hadda mar laba baalkii wadnaha loo geliyey baa waxaa la dhahay expire waayo waa in laga bixiyo marka xoogaa baan sugaya insha allah in iskuulada la xiro inaan baxaan rabin okay marka baxdid su'aal iska bareefada tahay ma caawin kartaa hooyo ma ku filan tahay والله كما فيلني لكن كلي فاميلي جنوا اسك فاميلي ما عرفت اسك ريسيف اري اسك دغ ودنك ولدي واحد adigu ma ka jooga miya anigu ma ka jooga seriously bini aadan oo kale ka joogta ma okay laba abaal marin ma ku wada marka ilaahay dambigaaga ha dhaafo horta ee agtaada ma degani waa la soo sheegay taariikhdaada inaa qof fiican tahay waa la soo sheegay sababtan ku waa sida labada abaal marin ku wada mid hadda igu soo dhacay midna horeba kuugu waday hooyana waan ku caawinayaa waxaan kaaga caawinayaa waxaan ku furayaa barnaamij leeyahay GoFund qof kasto Soomaaliyeed oo ku daawan doona ayaa hooyo ku caawin doona soo ilin bay igu soo tagtaaga sababtoo ah aniga hooyo ay kurisay hooyo ilaa hadda noo dagaalamayso nool adoo saasoo ku jira hawshaas oo waxaas oo dhan maanta oo dhan ku daba socday in haddana aad u baahan tahay caawimaad kale boqolkiiba boqol anaa kula garis taagay isbuucan baan bilaabaya hadda ii fasaxdid anigu bulshadan caawiyaa mahadsanid hooyo barnaamijkaas ku waday horta waa aniga laftigeyga yani ma jecel inaan xasuusto bad hooyada xanuun badan waa ku tusi karaa fiidiyoyaasheeda badan fiidiyoona badan bay haysataa marka sorry hooyo waa ilmayse sorry wallahi waxay haysataa aad baa wax weey hooyo arina waxa la dhahay hindi u qaad hindi u qaad baa lagu dhahay haye ma u qaadi kartaa hindiya ma u qaadi kari kan hindiya ma u qaadi kari sababta arin hab inaan baxaaba tigidkaygu hadda sorry hooyo macaan I'm sorry about that waa ka xumay macaan aad iyo aad baa ugu xumay hooyo macaan waxaad samaysaa marka ku sii badanayo waxaan rabay ninka gaariga caddaanka saaran wali saaxiibkii ma arkiis kulli daaqadu way xiran tahay ninkaasi wuxuu wataa kamarad buu wataa soo ubadkaaga waan qarinayaa wajigooda mana soo bandhigayo ayaga xumaanin waan duubayay intaan duubayo waxaan rabaa tan aan kugu caawinayo GoFund la yiraahdo cid ay caawinaysa waa bulshada Soomaaliyeed ee daawanaysa ayadana bixin doonta insha Allah oo iyo sirtigeeda iyo wixii oo dhan aabba maadaama uu dhintay waa kaaga soo cumreynaya ma sha Allah wiil oo walaalkaya oo Sacuudiga jooga oo wax ka barta oo jaamacad dhigta oo u soo cumreeya dadka baa kugu diraya isla berri waa maxay talaaso ma isla berri buu kaaga soo cumreynaya waana ku keenaya wallahi hadda abay iga soo cumreysan horta waa idinkaga mahad celinayaa hawsha maalin kasta aan ku fakra ama aan kamiinkiina ku riyado maalintiina ku riyado waxaan isdhaatalo see ku heshaa faadmo waatana waa la ballamay waxbaan tusayaa farxad leh aysan ogeyn السلام عليكم فاطمه صبح ونكسه سيتا في عنتا حالتك ورن حبان ربينا ان كنتو فيديو قاشد وداو لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى ومانتها نوافد شيء إن نقعهم بأنه إلهي سبحانه وتعالى هون حريصه نعول حسن عيسى وإنه وكيلتي إلنتيسو إلهي سبحانه وتعالى وكانوا يديننا أن نقدم الآخر اللهم يا رب اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين سوري والله لا بوقل المانيا سوري الى اباه نحرسه وانا سو غدني intii ballantii aan ku qaaday waa ka soo baxay insha Allah video-ga soo dhigi doono baan ku soo diri doonaa hooyana waxaan rajayn doonaa 100 ka badan lagu aruuriyo wadnaha sida khaldan beeteriga loo galiyay in aad ka soo saarto hindiya Ilaahay ku guuleeyo rajaynaya walaal okay marka hooyo mahadsan inta aan ku awoodi karayo waa intaas in aabba kaaga soo cumreeyo hooyo waxaad iga warantaa Addis Ababa isbitaal bay taala mise xaafad bay taala والله هوتيل بيت دقنت أنا حافظكم اللي لكن ويل والله يا سوق هذا هوتيل بيت دقي هوتيل كمهمينك وإحنا لقى قاعد وحلي قاعد $10 هذا بحسيت هذا مو حتى إنك بقولك الريال لهاي ريركس تاجر كوها والله هرت الريركس تاجر كوها ما هي أن كل هذا يقول أنا هذا عندك أنا هاي ديسمانت سكريد سما بحني صوبت أو حن كشقينا هاي هم كرده يوحنا دولة مراكب واتن هذا تشيك ولا يقول كريستا so I try ina ubari waxa soo wado
biilkay iga bixin weyse guri kiradiisina ma bixinin so xoogaa niyadda iska dhisan waxaan islaa taksiga iyo waxbaa xaraynaysaa waxbaa samaynaysaa taksiga hadda maanta markaan degan waxaa la dhaha lacag badan kuu soo noqon maysa hooyo wadnaha maxaa la yidhi markaa wadnaha hooyadii dee waxa ugu jirto afrika iyo systemka iyo waxa baal kiraayo oo camal bayteriga baa ku jira sida baalkan oo laysterka la geliyo hindi haddii la geeyo maxaa laga qaban karaa hindi waxa dhan haddii la geeyo wax baan ka qaban lahaa numberkaaga seelada sheeg hooyo adoo raali telefonkayga 612 waaye 707 707 8293 8293 okay macaan lambarka wixii seeladeeda karaankaygaabaa ku diray lambarkaa seelada ayaan lacagta ugu diray adiguna waad ugu diri karaysaa dhammaantiin aan ka wada qayb qaadanno si aan caafimaad dibadda ugu qaadno Faadimo hooyadeed oo wadnaha bayteri laga geliyey si khaldana loo geliyey una baahan in intii kii hore laga saaro mid cusub loo geliyo oo fiican oo shaqaynaya si nolosheeda ay u sii wadato qof kasta Soomaaliyeed barnaamijka waxa leeyahay mahadsanid dad badan baana u mahad celin doona ma sha Allah taala meesha aan joogo oo bulshada u qabtay wax badan taariikhdeeda waxa loo soo wadaagay qof saaxiibka ayaa ila soo wadaagay oo aad u calool warantay anna waxaan la wadaagayaa bulshada Soomaaliyeed tan kalena Soomaalida dhexgeliya hooy macaan aabay iga soo cumraysid ana kaga soo cumraysid intaas ba ii sameeyay hooy macaan wallahi wax kale oo maanta ma aragtay oo aan ina ilaahay jannadii idin geeyay ma in ku ducayn lahaa ma aabay awood baan u waayay ama ku baxo mikrofon ma xagan ma ku yiraahdan karaa sorry qof baa hadda ka hor idhahay waa ku sameynaya qofkiina wuu ikhiyaanay waana iska dhaafay ilaahan ku lacagtu ka qaat lacagu iga qaatay waana iska dhaafay wuxuu sameeyayna ma lahayn ana farahan ka qaaday aad iyo aad baa ka mahad celinaya hooy macaan qabow jira daraadiina haddaan barnaamijkan aan baahin karna isha hooy ma waa baahin kartaa fasaxa u qabtaa thank you ilaahay ku barakaya ay aad u mahadsantiin waxaan kuu sheegayaa hooyo Faadimo inaan u furay GoFund oo xagga sare saaran linkigiisu aad ku dhufanayso lacagta bixinaysa marka aad bixinaysid si hooyo Nuura oo ah hooyada dhashay Faadimo oo isbitaal jiifta looga saaro bayteri si khaldan loogu geliyay oo la yiri markii loo geliyay lacagtii hore lagu geliyo $12,000 ahayd 15,000 dheeraad oo kale bixi haddana waa lagu dalbayaa bayteriga dibadda laga dalbayaa hadduu xumaado marka la dana nasiibka inaanan mar kale ku khamaarin nolosha hooyo Nuura oo aan u qaadno dhakhtar dibadda ah ka qayb qaado oo bixi waxa aad bixin karayso bacda shida wa tacab mudanaya mar waadi aad halkan soo gaadhay waqti badan baa galay barnaamijkan adna waxaan rajaynayaa in dhowr cisho gudahood ugu soo arurto hooyo Faadimo lacagta aynu qabsanay iyo ka badanba si hooyo Nuura aynu u geyno isbitaal Hindiya insha Allah taala salaam alaykum يا فاطمة waxaad ugu diri kartaa zeelada hadii aad garan weydo sida donationka loo sameeyo ama GoFundka soo wac lambarkayga anaa ku caawinaya 651 245 7223 ama lambarkeeda waad wici kartaa in meesha ku sheegay video dhexdiisa